gudoomiyaha gobolka Gabiley ayaa maanta kormeerkadiisa ku soo maray laamaha wasaaradaha waxbarashada maaliyadda warshadaha dhalinyarada iyo ciyaaraha beeraha deegaanka caafimaadka dib u dejinta iyo baanka Gabiley halkaasi oo isu duwayaasha warbixin kaga dhageystay sidoo kalena waxa uu kormeer noocan ku soo maray dawladda hoose ee magaalada Gabiley oo dhammaan mas'uuliyiinta xafiisyada iyo maamulka dawladda hoose ee degmada Gabiley ay ka maqnaayeen marka laga reebo waaxda dhulka iyo diiwaangelinta barsaabka gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Ciise ayaa waxa uu ka warbixiyay kormeerkan oo laamaha dawladda ku soo maray runtii socdaalkayga maanta dariil maahayn cambaareen maahayn iyo diil waxa inaynu tusno in maamul gobolkan uu ku dabageli doono wixii hadda ka dambeeya laakiin waxay iman doontaa dhinacii kale inaynu hay'adii shaqaysan weyday hay'adda xafiiskeeda fadhiisanayn wixii inaynu soo bandhigno maanta qaar badan baan kaga dhixinay qaar badan diyaar kasi ahayn qaarna ma ogeyn marka waxaan rajeynaynaa inaynu hawsha maalin weekii ama labadii saddexdii week ba mar dardargelino waxaa soo hadhay degmooyinka anigu ma ahi dee maayar magaalada waxaan barasar gobolka degmooyinka oo dhan way hoos yimaada sidaas si lamid ah baynu u booqan doonaa xafiisyada degmooyinka waynu u ogaan doonaa shaqada ay hayaan insha allah dhawaan baan weeki dambe bilaabi doonaa waxaan rajeynayaa bil walbaba inaan laba degmo ama degmo soo fadhiisto si dadweynaha degmooyinka halkaa jooga baahidooda inoogu soo bandhigaan inuu ugu ogaano cidda ay ku habboon tahay in wax ka qabato inuu gudbino wixii innaga wax ka qaban karno inuu ka qabano waad aragteeno maanta dakhligii gobolkani runtii wax lagu farxo meel wanaagsan oo diilan ayuu maraya laamaha dawladda ee gobolka Gabiley ayaa hawlahoodu ay si fiican u socdeen marka laga yimaado wasaaradaha dib u dejinta iyo beeraha oo albaabadu xidhnaayeen iyo dawladda hoose ee Gabiley oo ay ka muuqatay habacsanaan shaqo Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV Gabiley